nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xilli walba goor walba iyo weliba waqti walba daawade magacaygu waa Shini Gestir waxaan caaw videoon gaaban ku baranaynaa sida loo soo helo the area of triangles beedka saddexagalada inagoo isticmaalina qaacidada caanka ah ee loo yaqaano Heron's formula. Heron's formula waa qaacido loo isticmaalo in lagu soo helo beedka dhammaan saddexagalada markii lagu siiyo cabirka saddexda dhinac area of any triangle waxa lagu helaa square root of ama xididka oo laga saaray s lagu dhuftay s laga jaray a oo lagu sii dhuftay s laga jaray b oo lagu sii dhuftay s laga jaray c intaanan s daawad u gudagelin waxa ay tahay waxaan rabaa inaan isla fahno a iyo b iyo c in ay yihiin cabirka dhinacyada saddexagalada intaasi waa muhiim inaan isla fahno haddaba s maxay tahay s waxay u taagan tahay ama ay tahay semi perimeter oo macnaheedu yahay half of perimeter afsmaal wuxuu noqonayaa cabirka wareega barkii ama nuski markii la isku daro saddexdan dhinac waxaa inoo soo baxaya cabirka wareega waan soo baranay sida loo soo helo wareega saddexagalada waxaa la isku daraa saddexda dhinac waxaa inoo soo baxaya cabirka wareega markii laba loo qaybiyo cabirka wareega waxaa inoo soo baxaya cabirka semi perimeter oo ah half of perimeter inaan s isla fahno waa laga maarmaan s marka waxay noogu taagan tahay semi perimeter oo ah cabirka wareega oo loo qaybiyay labo hadal badan ahaan ma buuxshay waxaan u gudagelaynaa tusaalehen tusaale soo hel beedka saddexagalka hoos kaaga muuqda halkan waxaa kaaga muuqda saddexagal ka mid ah noocyada saddexagalka dhinacyadiisa a iyo b iyo c waxaan haysanaa a 12 cm b na waxaan haysanaa 12 cm sidoo kale c na waxaan haysanaa 16 cm waxaana looga fadhiyaa inaan soo helno beedka saddexagalkan halkan nooga muuqda waxaan ognahay markii aad haysatid dhinacyada saddexagalka in area-ga ama beedka lagu helo square root of s lagu dhuftay s laga jaray a oo lagu sii dhuftay s laga jaray b oo lagu sii dhuftay s laga jaray c waxaan ognahay a iyo b iyo c inay yihiin 12 iyo 16 laakiin s inaan ogaano iyadana waa laga maarmaan si aan u xalino saddexagalkan halkan nooga muuqda beedkiisa haddaba s na waxaa lagu helaa a lagu daray b oo lagu daray c oo loo qaybiyey labo s markaa waxay la mid tahay a oo u taagan 12 lagu daray b oo ah 12 oo lagu sii daray c oo ah 16 oo loo qaybiyey labo s markaa waxay noo la mid tahay 12 lagu daray 12 waxaan ognahay inay tahay 24 oo lagu sii daray 16 waxa weeyaan 40 waa 40 loo qaybiyey labo s markaa waxay la mid tahay 40 u qaybi labo waxaan ognahay inay tahay 20 s waxaan soo helnay inay tahay cabirkeedu 20 s waxaan ognahay 20 inay tahay a na waxaan ognahay inay tahay 12 b na inay tahay 12 c na inay tahay 16 haddaba aan lambarada aan haysano aan gelino booskan xarfaha si aan u soo helno beedka saddexagalka halka nooga muuqda area markaa waxay la mid tahay area waxay la mid tahay xididka oo laga saaray s waxaan soo helnay 20 lagu dhuftay s oo ah 20 laga jaray a oo ah 12 oo lagu sii dhuftay s oo ah 20 laga jaray b oo ah 12 oo lagu sii dhuftay s oo ah 20 oo laga jaray c oo ah 16
hadda waan isticmaalnay lambaradeenii bal aan intaan isku dhufano intan aan ka saarno xididka si aan u helno bedka area markaa waxay la mid tahay square root of 20 lagu dhuftay 12 ka jar 20 waxaad ka jartaa 12 waxaan ognahay inay tahay 8 oo lagu sii dhuftay 20 laga jaray 12 iyadana waa 8 oo lagu sii dhuftay 20 laga jaray 16 iyadana waa 4 area markaa waxay la mid tahay square root of xididka oo laga saaray 20 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay 8 oo lagu sii dhuftay 4 8 lagu dhuftay 8 waxaan ognahay inay tahay 64 64 lagu dhuftay 4 area markaa waxay la mid tahay 20 lagu dhuftay 64 lagu sii dhuftay 4 balan isku dhufana 64 iyo 4 64 lagu dhuftay 4 waxa weeyaan 256 hay area marka waxay noo la mid tahay square root laga saaray 20 waxaad ku dhufataa 256 20 lagu dhuftay 256 waxay la mid tahay 5120 5120 area marka waxay la mid tahay square root laga saaray 5120 bal aan ka saarno xididka 5120 si aan u soo helno bedka calculatorkan tagaynaa waxaan dhahaynaa square root laga saaray 5120 waa imisa waa 71.5 area marka waxay noo la mid tahay 71.5 centimeter square sidaas ay waxaan ku soo helnay saddexagalkan halkan nooga muuqda oo aan haysano cabirka dhinacyadiisa bedkiisa inagoo isticmaalnay qaacidada caanka loo yaqaano Heron's formula daawade inta aan video lamid ah ku kulmi doono waxaan idin sii dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu